السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خارتم ميل walba daafaha dunida ka joogtaan ku soo dhawaada qalbi furan oo qabyaaladka nadiifa. magacaygu waa Fuad Qabyaaladiid waxaana si toos ah maanta u bilaabi doonaa barnaamij la yiraahdo barnaamijka reactionka siyaasadda. fadlan subscribe, like and share. mahadsan guulayso. haddii aad channelka subscribe oran waxaan rajaynayaa iminka inaad ku qabsan doonto. maanta waxaanu ka hadlaynaa siyaasadda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaanu ka hadlaynaa oo reaction ka bixinaynaa. sidoo kale waxaan ka codsanayaa barnaamijka iminka wuxuu live ka yahay YouTube channelkayga iyo sidoo kale barteeda Facebook. waxaad uga qayb qaadan kartaa barnaamijka dhinaca WhatsApp-ka adigoo aragtidaada dhiibanaya. ragga horteeda ka muuqda waa rag caan ah oo wada garanaysaan. waxaad aragtaa Axmed Madoobe, Sheekh Shariif, Sheekh Axmed madaxweyne soo noqday, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Qoorqoor, Xasan Sheekh Maxamuud, ninkii dani ahaa oo Kim Jong camal gacanta u taagaya, ninkii lafta gareen ahaa Xasan Cali Kheyre, mucaaradku waxba noo yeerin maayaan markuu dhahayo waayo sawirkaas. laakiin imika mucaaradku wuxuu yeeriyaan xataa hadalka loo ogolaanin. iyo ninkii madaxweynaha ee farmaajaha sababtan xoogaa u yeera madaxiisu u yeera taagay waa saas oo waa madaxweynaheeni dhib ma laha, xaalku waa degdeg. haddaba mucaaradka ama midowga musharaxiinta waa horta wax lala yaabo. rag hal kursi u tartamaya oo hal kursi doonaya oo haddana macnaha midowga musharaxiinta samaystay oo shir jiraayad soo saaraya waa wax cajaa'ib ah. meel kalena laguma arag oo Soomaaliya ahaan dad hal kursi u tartamaya, hal kursi, hal shaqo u tartamaya, haddana midoobaya oo sirtii wadaagaya. laakiin qolyaha macnaha iyagu siyaasadda falanqeeya waa ka dharagsan ay leeyihiin oo waxa waaye meeshan waxaa loo midoobay hal nin oo la yiraahdo odaygan maxaan ku idhahdaa farmaajo loo midoobay sidii macnaha haraanti bac loogu siin lahaa oo loo bursan lahaa uusan mar labaad u soo noqdeen. cabsi weyn ayayna ka qabaan qolyaha siyaasadda xuraansada ee koobka shaha u caba saas bay leeyihiin. waan garanay marka mucaaradku waa hadleen, waxay yiraahdeen shir jaraa'id baan qabanay, kadibna waxaan go'aansanay inaan qabanno dibadbax. booliiska ayaana waraaq weydiisanay, waraaqdii waa naloo diiday. Soomaalidu waxay tiraahdaa murti baa jirta tiraahdaa amar dowla mudeec ninkii diidayna dabal. haddiiba dowladdaadii diiday oo mudaharaadkan ay dhibaato u aragtay, mucaaradku waxay ahayd haddii nidaam dowladnimo ilaalinaya inay yiraahdaan bal waa ka joogeynaayo waa u kaadinaynaa. uma kaadina waxay yiraahdeen waa qabsoomaya. waxaana la isku xamaanayaa mudaharaadkaas inuu ka qabsoomayo Zoomka kadib markii shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda gaar ahaan gobolka Banaadir ee Muqdisho ku nool ay maanta hadleen. bal maanta maxaa dhacay? bal ila daawo muuqaalkan. waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta idaacadda Shabeelle oo xuquuqda muuqaalkana soo qaadanaya iska leh wareysatay. bal wiilkaasi muxuu yiri? habeen kastaaba ku qarwaaba waxaan ogahay anigana aaminsanahay waxay tahay in mar kasta oo dawladda Soomaaliyeed ay cagaheed isku taagi rabto in loo adeegsado dad Soomaaliyeed. waayo gaaladu waxay ogaadeen Soomaalida in ayaga la isku adeegsado inay ka wanaagsan tahay in ayaga soo ataagaan. marka waxay noo sameynayaan nin annaka noo waji oo nalaga aqoon oo dadkii u moodaan inuu asagu annaka macnaha uu namatalayo in ayaga noo adeegsadaan oo qandaraasyo lagu soo siiyo oo lacag lagu soo siiyo. marka annaka ma toognayna shacabaan nahay, waxaan rabnaa nabadaan rabnaa annaka wiilkaas muxuu yiri? wuxuu yiri annagu ma doonayno dad qarandaraas soo qaatay in loo soo adeegsado. waayahay sheekadan qandaraaska Soomaaliya lagu soo qaadanayo ma haddii soo bilaabatay mise qarniyo hore? horta Soomaalidu waxay u badan yihiin dad aan waxba akhrin laakiin wax dhagdhageeya. haddii wax la akhrin lahaa wadada horumarka lagu gaaro ee rafaad iyo silic iyo balo iyo baas looga gudbo ama ta soo socoto looga gaashaanto waa wax akhrinta. qolyahan wadankooda imika igu magangeliyay joogo Ingiriiskana waxay yiraahdaan the more you read the more you know. macnaha inta wax badan akhrisid waxay ku furaysaa albaabada wax badan baa ogaanaysaa. waxaa jira haddaba heshiis la yiraahdo heshiiskii Canjeel xilligii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee baa u naxariistay baa jirtay heshiis Canjeel la yiraahdo oo sayidka macnaha lagu waxyeeleeyay. sayidka rag tolkiisa oo Soomaaliya baa Ingiriiskii oo
intuu gudaha galay maadaama sayidku uu yidhi anigu diin baan faafinayaa dadkan dalkooda inay difaacdaan oo gaalada ka difaacdaan baan doonayaa baa sayidkii baa lagu kacay ingiriisku waa fikiray wuxuu yidhi ninkan diintan aan kula dagaalano ragga wadaaddo ururiyey ingiriiskii raggii wadaadadaha markuu ururiyey baa wuxuu yidhi raggan shiiqa sayidka shiiqiisa oo sacuudi carabiya joogay ha loo diro markab buu ka buuxiyey sacuudi carabiya la geeyey raggii culimmada ahaa shiiqiiba waxay u tageen shiiqii sayid maxamed cabdilla xasan oo sacuudiga jooga markaasuu wuxuu yidhi haye maxay igu timaadeen ninkii aad cilmiga bartay oo diinta aad bartay hal xabo kuma dhaqmo ummaduu laayaa dadku dhacaa nimantuuguu samaystay waa kaas shiiqow marka waxaan kaa rabnaa inaad fadwootid bay yidhaahdeen laakiin raggaas culamo ku sheeg ayaa abuuray dowladdii ingiriiska ee waddanka haysatay guumaysanaysay baa abuurtay macnaha waxaa la yidhaahdaa diiwaanka sayidka haddaa akhrisid waa gabayga kontonaad baan jeclahay waa noo soo qabanaya waan idiin akhrinayaa si macnaha u qanacdaan waxbaa la albeeyey marka waa idiin akhrinaya gabaygaas laftigiisa baan soo qabanaya hadda macnaha sheekada tusaale ahaan igu soo dhacday waa idiin soo qabanaya intaan soo qabanayo heestan dhaca idinka siiyo dhaca siyaasi xumowna daa waaba soo qabtayba macnaa sheekaba sheekay keentaa baa la yidhi moogtahay sheekada waxaan ku keenay wiilkii ka hadlay oo yidhi ninkan raggan odayaasha waa rag macnaha lasoo adeegsaday macnaha waa hayaa oo waa kaas horteeda yaalla macnaha kaamirada waxaa macquula in xoogaa caddaan idin tusto raalli ahaada waa kaas waa kindlekayga aan isticmaalo marka heshiiskii canjeel baan noo akhrinaya macnaha sheekadii ku timid sababto markaa wax akhrisid wax badan baa ogaanaysaa markii aa wax tusaaleynaysid waxaa loo baahan yahay tusaale qofka macnaha ka gadmi karo oo taaban karaa loo baahan yahay moogtahay marka ragga horteeda ka muuqda qaarkood hebel iyo hebel oran maayo in la soo dirsaday shaka kama jiro idinkay daawanaya waxaad ka codsanayaa barnaamijka sii shargaraa walaal share ku dhufo si dad badan u yimaadaan youtube channelkana ku qabso maxaan ku idhaahdaa subscribe ku qabso galbanaanka furo beeskana like ku qabso si aad mar walba ula socotid barnaamijka reactionka siyaasadda iminkana heshiiska canjeel baa inoo akhrinayaa saadee aynu u wada fahanno halka ay xeera ka qurunsan tahay waayo haddaynaan fahmin dee weligan waxu fahmi mayno soo ma marka dhac ku siiso subscribe-ka fadlan subscribe like and share mahadsan guulayso waa idinkaas heshiiska canjeel oo macnaha aan ku keenay wiilkii yaraa hadalkiisa aan ku keenay haddaan xusuusiyo dadka hadda inagu soo biiray youtube-kan inaga daawanaya wiilkan ka hadlayo waa wiilkii yaraa ee maanta idaacadda shabeelle ay wareysatay bal dib aan idinku celiyo habeen kastaaba ku qarwaaba waxaan ogahay anigana aaminsanaha waxay tahay in mar kasta oo dawladda Soomaaliyeed ay cagaheeda isku taagi rabto in loo adeegsado dad Soomaaliyeed waayo gaaladu waxay ogaadeen Soomaalida in ayaga la isku adeegsado inay ka wanaagsan tahay in ayaga soo ataagaan marka waxay noo sameynayaan nin annaka noo waji oo nalaga aqoon oo dadkii u moodaan inuu asagu annaka macnaha uu namatalayo in ayaga noo adeegsadaan oo qandaraasyo lagu soo siiyo oo lacag lagu soo siiyo marka waa ku kaas haddaba heshiiskii canjeel aan idinka dhaco buuggan ka akhrinayana waa buugga diiwaanka gabayadii sayidka canjeel haddaba maxaa dhacay canjeel waxaa waaye waa heshiiskii ilig lagu kala qortay kadib ayaa ingiriisku wuxuu isku dayey inuu daraawiish qalaanqal iyo xumaan ka dhex abuuro si ay u kala firdhaan macnaha waa sida hadda siyaasadda soomaaliya jirta oo doorashadii macnaha rag ay ka socon weysay la yaqaano ninka la yiraahdo dani iyo ninka la yiraahdo axmed madoobe iyo raggan midowga musharaxiinta sheegtay ee uga socon weysay sidaas si lamida ayuu macnaha daraawiishu u fufuro ingiriisku dhexdooda inuu balaayo iyo rabsho iyo qaylo ka abuuro waa kaas sababto raggaas waxaa la leeyahay kis baa loo soo tuuraya waxba yin kala socon waxba yaan la dhaqaaqin heshiiskii ilig lagu kala qortay kadib ayaa ingiriisku wuxuu isku dayey inuu daraawiish qalaanqal iyo xumaan kala dhex abuuro si ay u kala firdhaan xiribtii iyo xeeladii waxay tustay
inuu xagga diinta ka galo fiiriya meesha ugu daran diinta haddii lagaa galayo dhaqanka waa balaayo macnaha xaaladda ingiriiska waxay tustay inuu xagga diinta macnaha dadka soomaaliyeed maadaama dad diinta macnaha dhaqan ahaan iskaga haysto laakiin ku dhaqman ay yihiin inuu xagga diinta ka galo shab uu ka yidhaahdo buu isku dayey haye sidaa daraaddeed buu ururiyey niman wadaadda ku sheeg ah oo isaga raacsan afkana wuxuu u gelshay inay sheekh maxamed saalax oo sayidka shiikhiisii ahaa ka gowriyaan ama ku dacweeyaan wadaadiinta sheekh maxamed saalax oo sayidka shiikhiisa ahaa ka gowriyaan ama ku dacweeyaan wadaadadii taa way ogolaadeen waa raggii macnaha la soo ururiyey ingiriisku soo urursaday arrintii waa aqbaleen okay ingiriisku markab ayuu ku qaaday wuxuu geeyey maka iyagoo ku marmarsiyoonaya inay xaj gudanayaan dabadeed sheekh maxamed saalax bay u tageen oo waxay u sheegeen waxaan jirin iyagoo sayidka cambaareynaya sheekh maxamed saalax taa run uma qaadan dhowr toddobaad haddii xaajadii laga doodayey waxay ogolaysiiyeen inuu xaashi aan ceeb lahayn u qoro sayidka bal khiyaanadaas eeg haddaya inuu xaashi u qoro oo macnaha uu ku waaninayo bay codsadeen laakiin karaanigii ninkii waraaqda qoraayey bay gooni haddana ugu tageenoo waa iibsadeen ninkii waraaqda qoraayey waaye haddaya bay u tageenoo waa iibsadeen ninkii baa lacag iyo xoolo badan intii la siiyey baa waxaa la yidhi waraaqa ku cambaaraynaysid qor si uu u qoro xaashi sayid maxamed cambaaraynaysa wuxuu ku kacana ceebaynaysa inkastoo ay adduun badan bixiyeen taasi way ahaatay oo waa u meel martay wadaad ku-sheegyaashii waa heshiiskii iyo canjeel ma garateen xaashadii markii ingiriiska loo keenay wuu badiyey macnaha wuu koobi gareeyey koobi badan buu ka bixiyey si uu dalkii oo dhan ugu faafiyo oo xumaanta macnaha uga sheekeeyo beenta oo la yidhaahdo shiikhiisii sheekh maxamed saalax sheekh maxamed ee uu ahaa sayidka shiikha uu ahaa ee sacuudiga joogay waa ka fadwooday ninkan wuxuu wada diin ma aha waa been dadka ka soo horjeesta rag wadaaddo oo soomaaliyeed oo waddanka laga qaaday baana saas sameeyey sida maanta macnaha taagan waa tii mid lamida rag annaga noo eg oo siyaasiyiin aa u malaysid oo siyaasiyiin ahaan ya oo waddanka gadanaya oo iibsanaya oo ilaaha idinku dhaarshe macnaha gefayga ma aha axmed madoobe waa madaxweynaha jubbaland meesha la isku haysto oo kenya ay leedahay waa baddayda waa dhulka asaga uu ku taliyo iyo shacabka uu u dhaartay ee jubbaland ee qabiil walba oo soomaaliyeed leh haddii amiirkaagii dhulkii lagugu haysto uu ka hadlaynin oo juuq dhehaynin uu yidhaahdo aniga hawshaas iyo mataalay dowladda federaalka u taalla ilaaha idinku dhaarshe xaggee la aadaya marka xaalku wuxuu noqonayaa sida raggan loo gatay oo loo soo adeegsaday oo maanta madaxweynihii jubbaland uu haddana uu yidhaahdo farmaajo ka mas-uula xuduudaha aniga waxba igama quseeyo ka hadli maayo kenya haddii soo gashay xitaa dhulka timaado iyo qabsato kismaayo iyo dekada la wareegto meeshii goob weyn webiga saas uga daraya badda ee quruxda badneed beeraha lahayd halkana kalluunka ka soo dibsanaysay kenya ay qabsato oo caawa ku habsato oo uhura la yidhaahdo waxaa looga dhisayaa qasri weyn baa looga dhisayaa la yidhaahdo oo madaxtooyada kenya baa meesha loo soo rarayaa isagu wuxuu leeyahay waxba igama quseeyaano farmaajo ku shuqulle farmaajo baa ku shuqulle waayahay xaashidaa noo sii wado xaashidii nuqul ka mid ah ayaa xaruntii daraawiisheed soo gaaray macnaha qayb xaashida kamid nuqul ka mid a ayaa xerada daraawiisheed soo gaaray lama qarin ee dad oo dhan baa loo akhriyey waa loo sheegay dabadeedna hadalkaa beenta ah niman baa run mooday iyagoo moog inay qoladan iyo xeeladii ingiriiska maamulayay ay ka dambeeyaan dad baa iska aaminay dad baa maanta macnaha axmed madoobe iyo deni oo doorashadii dalka diiday iyo ragga midowga musharaxiinta sheegtay qabiil aawadiis ugu ololeynaya qaar kale iska masaakiino iska soo hoganaya oo leh maya hebel waa khaldan yahay maya saan waaye marka farmaajihii sayidku meeshii iskaga eg yihiin maanta oo intaasoo qarni ya 100 iyo xoogaa sano ka hor ka soo wareegtay sidii loo shirqoolay sayid maxamed cabdulla xasan ayaa maantana farmaajo loo shirqoolay
waa loo shirqoolay tii qalbi dhagax baa shirqool ahayd tan doorashada la diiday baa shirqoola war ninkaas ilaahay baa u maciinaya been idin sheegi maayo wallahi ilaahay baa u maciinaya hay bal eegaya bal Soomaaliya wax waa la istusaaleeyay bal ilaahay eega waan gartay niman dhowr boqol ah ayaa faqay macnaha waa showreen af Soomaaliya uu ku qoran yahay waa iska adag yahay laakiin waa noo sijilcinayaa inta ka aqaano inta ka aqoon erigaan aqoon ma aqaanaa ilaahay niman dhowr boqol ah ayaa faqay waa showreen oo waxay ku tashadeen xarunta inay gambi ka tuuraan sayidkaba laga takhaluso qorta loo dheereeyo sida farmaajada la damacsan yahay hase ahaatee uma hirgelin shirqoolkaasi markii la ogaaday sirtay damacsanaayeen wixii ku habboonaa baa laga qaatay kulligood qoorta loo dheereeyay waay ma fahante wax la xiray iyo wax macnaha dhulka laga eriyay bay noqdeen waa garanay wixii ku habboonaa baa laga qaatay wax la dilay iyo wax la deyriyay iyo wax duubkii daraawiishnimo laga qaaday ayaa laga dhigay sababtoo ah rag maanta waxaa jira xildhibaano sheegta oo dawladda ku jira oo xasaanada xildhibaannimo in laga xayoobiyo mudan haddii qabiil walba kan ugu doqosan uu soo dirsan lahayn ragga qaarkood waa laga xayoobin lahaa sababtoo oday dhaqameedku markuu arko ninkii siyaasadda ay ku aamineen oo qabiilka usoo doorteen oo qabiilka hogaaminayay oo macnaha cagawareejis kala wada wuxuu ahaa odaga inuu yidhaahdo gudoomiyaha baarlamaanka kan aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka inuu waraaq usoo qoro uu yidhaahdo war raggaas tolkii ma matelaan qabiilka ma matelaan ka xayoobi xilka xasaanada laga xayoobiyo siduu sayidku ugu xayoobiyey xilkii iyo darashadii daraawiishnimo raac waa ka tiriyey ya waa ka tiriyey ma fahantay maxaa laga xayoobiyey wixii ku habboonaa baa laga qaatay wax la dilay wax la deyriyey iyo wax duubkii daraawiishnimo laga qaaday ayaa laga dhigay sayidkuna gabaygan ayuu ka tiriyey taas waxaa loo yaqaan canjeel waa gabaygii sayidku uu mariyey waana heshiiskii canjeel ama heshiiskii ilig sayidkan ayaa shirqoolay rag wadaada oo culimo ah oo masaajidka ka tujiya oo quraanka laga oo tafsiirka laga dhageysto oo axaadiista laga dhageysto raggaasi ahaayeen ragga Ingiriis gatay oo geeyay Sacuudi Carabiya Sheekh Maxamed Saalax oo sheekh oo sayidka sheekhiisa loo geeyay haddii taasi 150 sano ka hor ay dhacday maanta oo 2021 la joogo bal ilaahay idin ku dhaarshay mar kale haddii dhacayso oo dawlad hebel baa kharash bixisay iyo dawlad hebel baa kharash bixisay iyo dawlad hebel baa bad la siinaya iyo annaga idin saxiixana annaga aan nimaadno iyo ninka la rida labada maxamed waa maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan hadda labadaba waxba ka dhaxeeya halkaas waxba is yeelanaya marka wuxuu yiri gabigiisi wuxuu yiri warsuudow sadka waa janne samca kalaankeyga warsuudow sadka waa janne samca kalaankeyga salaama alla yeeliyo waadaan saakin ku ahaye sawdkan ku leeyahayu salabka ka raacin sankor iyo sareen malable iyo sixin ku iidaaman haryaha sanuunadan ee barnida lagu sibkaaqaayo sulux caana geel sogob la qalay sarara geedaysan macnaha sararaha waa sarar hilib sarar oo la geedayo la carfiyo gabar gaar ay karisay haye sareerada raggii aan u waday saadka iyo quudka saqda dhexe habeenkii raggaan saha u geynayay kuwii aan sabraaray ayba eega saatan ii galaye salaadiinta nimankan qoree sare u qaadayay fiiri salaadiinta nimankan qoree sare u qaadayay yaa kamid ah raggii salaadiinta la qoray ninkii odayga ahaa ee ra'iisul wasaaraha dalka dhan loo soo magacaabay waa xasan cali khayr bal eeg ninkii dhammaa ee ra'iisul wasaaraha qaranka loo soo magacaabay wallahi gabayga waxaa u malaysaa sayidka wixii ku dhacay inuu farmaajo ku dhacay waa ninkii dhammaa hadda qaranka loo soo magacaabay ya sareerada raggii aan u waday saadkii iyo quudka saqda dhexe habeenkii raggaan saha u geynayay kuwii aan sabraaray baa saatan ii geliye salaadiinta nimankan qoree sare aan u qaadayay raggii sidigta geela hayayo suuska beeganayay nimankii siday doonayaan sahal u yeelayay nimankan sariiraha u dhisee sohdinta u jeexay suuradda iyo dadabtii raggiiyaan saari ugu gooday
gabdho wada sorowrada raggan soo jadda uga yeelay nimankan salaaxanahayee saxar ka eegaayey dhib dhan aan u diidanaa daya dhib dhan aan u diidanaa nimankan siyaarada col iyo saha ka dhowraayey nimankan saqiir iyo kabiir sama u miiraayey sidka boqol ah soof badan raggan wari ugu yeedhay soogaan darmaan iyo raggan salabadu u dhiibay nimankan sogtooda iyo fardaa siiyey odhanayey raggan sumca mawdhiin iyo saanadda u buuxshay nimankan salaadii u dhigay subacyadii diinta sallallahu nabigii raggan saamax uga doonay wuxuu leeyahay ilaahay baa u baryay ilaahay inuu saamaxo uu cafiyo nimankan sokeeyaha badiyo siiro iyo aamin sarsarkooda nimankan degiyo suuqa gurigooda saxariiraday igu faleen waa sahwiyayaaye niman yahow si daran baa qalbigu ii sadamayaaye sokeeyo iyo xigaalana sugeen saaca maanta ahe soomaali oo idil way sun iyo deebaaqe macnaha qof walba oo soomaaliya waaba ii sun iyo deebaaq waxaan ka dhegaysanaya ma leh ayuu sayidku leeyahay cajaa'ib sulankood la naar gun iyo saaruqyey heliye sulankood la naar gun iyo saaruqyey heliye war waana habaaray ninka odayga wallahi waana habaaray waana la helay wallahi macnaha saariqyadii waabana heleenba hadda tuugadii waabana heshayba waabana hor fadhiyaanba sulankood la naar gun iyo saaruqyey heliye sinjidaanadii bay khatalay saanjiga ahaaye macnaha sinjidaanadii baa khatalay khiyaameeyey saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxeer saatan ii galaya macnaha ragga saan ii xumeynaya oo dulmigan ii geystay oo ingiriis iga raacay oo la soo saftay waa seediyaashay marka gabaygu waa dheer yahay laakiin meesha ugu dambeysa asagu waa idinla soo wadaagi doonaa gooni idinku soo doobi doonaa haddaa ka heshaan commentiga igu soo qora laakiin waxaan jeclahay inaan labada bayd u dambeysa soo qabto oo bal arrintan aan waafajiyo markaan sabi ahaa iyo haddaan suurad oda yeeshay markaan sabiga ahaa iyo haatan oon suurad oda yeeshay samaa ilaah iga dhigay saaxir iyo colade saaxiibkii aan yeeshaba waa ii saymo lagu rabiye macnaha saaxiibkii aan yeeshaba waa mid ikhiyaameeyo ilu gooya mar haddaanu sabankeer nafluhu saafi noqonaynin macnaha mar haddaanan sabankeer nafluhu saafi noqonaynin haddii xilligan la joogo qofkuba wanaag iyo laga sugeenin macnaha ififaalo wanaagsan waxba yaynan sida saar nin qaba salalin goorteene ilaahow adaan ku samree suubi taladayda ilaahow adaan kuu samree suubi taladayda ilaahow adaan kuu samree suubi taladayda ilaahow ninkaas odayga ah ee farmaajoa maanta aniga siyaasiyiinta soomaaliyeed ma kala jecli laakiin ninkaas odayga ah in la dulminayo oo gardarro lagu haysto oo macnaha qabiil lagu haysanin oo lagu haysanin maxaan ku idhaahdaa wax kale laakiin lagu haysto toosinta ummadda soomaaliyeed baa noo muuqata ciddii diidaysana hadda waa og tahay oo waxaa waaye waa cid aan alla ka cabsi qalbigeeda ku jirin marka laba kool iyo bal wixii aan ka qaban karaan ka qabanayaa khadka whatsappka soo qabta waxaan jeclaha marka bal dhinaca kale inaan wax yar sii yara daawano wiilkii isagu ka hadlayay dhibka ka taagan iyo mudaharaadka la qorsheynayo iyo hadduu dhaco dhibka ummadda ugu sugan mudaharaad looga soo horjeeda dawladnimada Soomaaliyeed nimanka ku dhawaaqaya inay mudaharaad qabtaan wixii ilmahoodii geysteen Turkiga Yurub annaguna masaakiinaan nahay hooyaday xamar bay degantaa maanta haddii xabad bashtiraa waxaa laga yaabaa inay meel ay soconayo abaad iyo midna keenan ay u cararto afka waxay aadinay meeshii markaas ay xabad ka dhaceen hadda xamar amniga ku joognaa xabad naguma socoto rafaadna ma haysto
waxaana haystaa waa kibir iyo waxaan annagu aan hadda waxay yihiin aan aqoon nabadeennana mucaaradku nooma hayaane ilaaha nabadda noo haya nabadaan rabnaa nabadna waa haysanaa waxaan u baaqayaa nimanka midowga musharaxiinta la baxay ilmahooda waxay geystaan kan ugu hooseeyo oo ugu dhowaa afrika kuwan kale waa yurub iyo maraykan ay wada degsadeen marka inaan lagu shacabka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed maanta in lagu qaraabto waa diidnay ma yeelayno qof walba oo caqli leh oo caqiido leh oo muslim ah oo soomaaliyeed waxaan u baaqayaa shacabka soomaaliyeed waa hadleen ninka odayga baaqiisii uu yidhi haye alla isu yimaadana de waxaan leenahay ka kac waay العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين macnaha salliga nebigaa lagu qabsanayaa nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee asagoo la og yahay ummaddu in la lugooynayo oo la dulminayo oo dalkii la kharibayo ayaa salliga nebiga lagugu bilaabaya dadweynaha Soomaaliyeed balkasta ay joogaan waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galabta waxaan halkan ugu talagalnay inaan ku bixino ku qabano shirkan jaraa'id oo uga hadlayno arrimaha mudaaharaadka maalinta Jimcada ee soo socoto shirkan jaraa'id waxaan ku metelaa golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya oo afayeenkoodii ahay waxaan rabnaa inaan qabano maalinka Jimcada ah sidii shalay tabaad la socoteen Soomaaliya meel kasta joogtaan haye ma aadaysaa mudaharaadkaas mudaharaad adoo Soomaaliya jooga aad og tahay kan siyaasadda sheeganaya inuusan asagu imaanaynin walaalow gacliyo ma aadaysaa waqtiga ma iska luminaysaa waa maya iska lumin maysid waayo waa inaad noqotid oo aad fahantaa xaqiiqada iyo runta sidii dhallinyarada u fahmeen ilaa eg waxaas inay ka soo horjeestaan oo ay dawladdooda ilaashadaan adduunka dawlad la'aan waxa waaye shaqo ma jirto dawlad xun dawlad la'aan dawlad xun aa dhaanto nasab fiiri nasab saasaa la rabaa ninka dhallinyarada oo danta dalka iyo ummadda Soomaaliyeed ee tiisaba gartay waa ninkaas oo kale ma aha ka qurba joogta ah yaa subaxiina caarta soo saxiixa guri bilaashina degan waxbarashada inuu ka faa'iideysto diiday oo halkaas yiraahdo reebel wala banaan baxaya 8 February burwale balaya dhacayso waa bursaneena waa eriyeena sida midkaan ii sheegay maxaan ku dhahdaa maxaa la dhahaa Cabdiqaadir Boos oo Finland jooga iyo midkaan kale asagna Ingiriiska la jooga Lii Xaaji ma la dhahaa iyo mid kale asagana qayqayliyo hebel maxaan ku dhahaa mar walba qabiil afka reebel baa hay waana la dhacaysaan way dadka xoolaha ama aragtay oo sanbaxyaasha oo neefyada ah wallahi hadaladooda kama helo wallahi laakiin wiilkaas dhalinyarada maanta Muqdisho jooga oo yiri dawlad xun dawlad la'aan bidaata hadii dawladeeda ay xun tahay ma la igu diraayo diiday ya sababtoo ah shaatiga cad iska wasakhayn maayo dawladeeduna maalinba maalinta ka dambayso waa ka soo fiicnaanaysay tanna waa ay fiicnaan doontaa doorashadu a dhacday ogolaada laakiin idinka yeeli mayno madaxtooyada u daatay iyo alla fiiqday iyo dayacatir labaad iyo adduunyadaas iyo war uma hayno war walaalow suudka xiran tahay ee dhowrka $100 ya hay lugoonin ya labiskaygii maxaan ku dhahdaa hantideedii baa ku labisan tahay hay lugoonin laakiin haddii banaanbaxa lagu qabanayo suumka waa ka soo qayb galaynaa waa ila socotaan soo maaha bal wiilkaas warkiisaan sii wado dawlad fiican haysanaa haddaad ogtihiin mushaaraadka waa la cuni jiray ciidamada mushaaraadka shacabka Soomaaliyeed waa la cuni jiray saad la socotaan maanta waxay noqdeen nidaam highway oo sax ay noqdeen adinka wariyaashana waxaan rabaa in runta dadku sheegtaan waad ogtihiin wax walba nasab fariin cajaa'ib oo diray wiilkaasi wuxuu yiri idinka wariyaashana waxa la idinka doonayaa inaad shacabka runta u sheegtaan shacabka waa inaad runta u sheegtaan waa inaad beenta macnaha iyo bugbugta iyo sharuurka la soo qaadanaya ka diisan waayo saxaafadda Soomaalida hadii toosi lahayd dalkeena waa toosi lahaa wariyii wuxuu ku xisaabtamaya maanta $100 iyo $50 iyo meel laga soo siiyo ku xisaabtamaya laakiin wariyii ku xisaabtami lahaa saan ku gudbiyaa fariin aanan mucaaradkana u tureenin muxaafidkana u tureenin danta dalka ay ku jirto bas intaas duu ku fikiri lahaa ilaahu aan qatanaado ilaahu aan kabalaado kaamiradeedaas iyo mikrofonkeygaas wax nadiif oo la hubo oo xaq oo dalkii iyo dadka ugu helinayo si ummad ugu soo gudbiya haduu ku fikir lahaa oo soo ku fikir leen macnaha kana reehibl kula iyo kana raahibl ka iyo kaasha sharur yar ku siinaayo iyo wallahi waa la guulaysan lahaa
wallaahi inaanan been idiin sheeganin waa guulaysan lahayn wallaahi magac ilaahay idinku dhaaranayaaye anoo ingiriiska jooga oo shaqaysta oo waxba iga maqneen ilaahay waa ii nimceeyey alxamdulilah lixdeedin laxaad qaba waxaa la isku dayay 1 iyo 2 iyo 3 in ka badan ya sandareere yar inta yar Facebook laga arkay insa sameeyo in lagu iibsado oo la yiraahdo fuaado maxaan ku dhahaa dhac lagu soo siinayay kaalina la shaqee hadaba waxaan ku shaqeysan karo hal asbuuc ba waxa lagu leeyahay intaas lagu siinaya marka qof aan damiir lahayn ba waxa sameeya war hadaa qurbaha ku nooshay overtime qaado lacagtan waxaan yarka oo bishii lagu leeyahay 1 iyo 2 kun lagu soo dirayaa iyo waa damiir xumo dalkaaga iyo sharaftaada sumcadaada iyo mabda'aaga ha ku iibsanin kan wariyaha dalkii jooga waxaan leeyahay wallahi bilaa been kuma sheegay walaal ha ku iibsanin rafaadka waa laga baxaya dhibka waa laga baxaya qof walba nolosha taariikhu soo maray maalin walba wax lama haysto kan maanta wax haysta bari inuu wax walba weyn doono ay macquul tahay dunidan waa laga tagaya kafan cad ka qaadanaysa laakiin maanta dalkaaga ugu hiili afkaaga iyo adinkaaga inta ugu hiili inta u baahana waa intaas qabiil meelna geen waa raggan horteena ka muuqda dhadhalaalaya quruxda badan nin walba waxa la yiri qabiil buu ku matalaa dawladda suudku uu xiran yahayna ya waxa way ugu yaraan 100 famil oo qabiilkiisa uu biila cid ayada gaajeysan iyo cid ayada dhiban iyo xildhibaan golaha baarlamaanka geenaya ma aragteen inta soo jarba su'aasha sidoo weydiiyay waa ma soo ma yaa la idinku lugoonin yaa la idinku jaayfeenin yaa la idinku khatalin mucaarad waa jiri karaa lama diidana laakiin mucaarad dal kale uu wato walaalayaal waa sheekadii heshiiskii ilig ama heshiiskii Anjeel ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ku dhacay ingiriisku intuu culimo ururi rag ku sheegay uu geeyay waa taas oo kale marka beentaas yana lagu akhrin yaa la yeelin yaa la aqbalin yaa la dhageysan shacabku waa in danta guud ay u midoobaan war wallahi raggaas aan maanta diidanahay qaarkood ya haddii madaxweyne ee barita Soomaaliya u noqdaan doorashadan hadda la filayo ee madaxweyne ka noqdaan wallahi saa maanta farmaajo u taageersanahay aan Britain u taageeri doonaa iga qora waa arki doontaan sababtoo mar walba madaxweynaha xilka hayo hadduu xaq ku taagan yahay waa in la taageero Sheekh Shariif aan soo taageeray Sheekh Maxamuud soo taageeray Cabdullaahi Yuusuf aan taageeray ilaa u naxariisto Cabdiqaasim aan taageeray maxaan ku yiraahdaa maantana farmaajo aan taageeray waliba farmaajo waa nin said loo dulmiyay maadaama markii la arkay inuu wax toosinayo baa la sii dulmiyay marka waxaan jeclahay 2 qof ilaa 3 qof inaan koolkooda ku soo gabagabeeyo barnaamijka dhinaca khadka WhatsApp-ka oo furan yahay dhac ku soo dhax waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay markaas kadib inaan soo gabagabeyn doono barnaamijka fadlan subscribe like and share mahadsan guulayso kanu horseedayo sirtaadi garanayo sidii hore lama ahee siyaasi xumoodada siyaasi xumoodada akhirta dhinaca WhatsApp-ka ayaa iga soo qaban kartaan inta jecel barnaamijka reaction-ka siyaasadda inay ka qayb qaataan barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij taxanaa waxaa kala socon doontaan YouTube channelkayga asagoo toosa iyo barteeda Facebooka oo imika si toos ah uga daawanaysaan idilkiina meel walba joogtaan waa mahadsantihiin waxaan ka codsanayaa WhatsApp-ka waxaan rajaynayaa inuu meesha ku qoran yahay ayaa toos soo wici kartaa 2 qof 3 qof aan jeclaan inaan ka qabto kadibna aan barnaamijka soo gabagabeeyo halo salaam calaykum walaal magacaaga ka joogtid halo magacaygu waa daacad laba min dariiqto saraninkii habeen ka dhacday taa qayb qaadanayo ay daacad soo dhawo barnaamijka reactions-ka siyaasadda toos ugu jirtaa aragtidaada bal ku aadan raggan Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ee midowga musharaxiinta la baxay ee mudaharaad ku baaqay jimcaha iyo shacabkii Soomaaliyeed oo diiday see u aragtaa wallahi saaxiib macaan horta Soomaalinimadu cadaalad bay rabtaa nimankan shalay markay kursiga ku fadhiyeen
siyaasiga Soomaaliya horta inuu beenaale yahay oo beenaale kidaab yahay waxa ku daliila Xasan Cali Khayre ninkii shalay lahaa buu ahaa mataqaanaa qabqablayaasha kama dayna sharafta shacabka Soomaaliyeed baan ka daynaa maantana horta waa nasiib darro Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku weeraray gurigiisa isagoo amarka bixiyay inuu daba fadhiyo oo daba taagnaado sax laakiin waxaa hubaalaha shacabka Soomaaliyeed way bislaadeen way arkeen qofkii dantooda ku jirtay arkeen qofkii damiirle arkeen dee farmaajo waxay ogaadeen inuu yahay mataqaanaa shakhsi madaxda qayrkii ee Afrika aan madaxa foorarinin qab waa gartay marka saaxiib macana waxaan leenahay Soomaalinimadu cadaalad bay rabtaa shalay markuu Xasan Sheekh Maxamuud ayay farmaajo inta banaanka soo fadhiistaan meel lahayn banaan bax baan iclaaminaynaa mudada kale mid baan ku sheegayaa waa farmaajo waa lahaa oo madaxweyne farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud 6 bilood oo ku darsaday waa ka qeyrinayay sharci darro ku jooga waxaas oo dhan waa yiri wana luuqad siyaasadeed taasi wax ceeb ma laha waa luuqad siyaasadeed oo lama diidana tan xitaa banaan baxa imika waa luuqad siyaasadeed laakiin tii farmaajo iyo tan Xasan Sheekh Maxamuud maxaan ku raahdaa xilligoodii iyo tan maanta taagan wax badan bay ku kala duwan yihiin maanta dalkii ayaa waxa la diidan yahay doorasho inay ka dhacdo iyadoo hal qof weerar lagu yahay qofkaas inuu yahay madaxweynaha imika ee talada haya marka aragtidaada aad iyo aad ugu maasan tahay daawadaha ku xiga aan jeclahay inaan fursad siiyo kadibna waa soo gabagabeen doonaa hadduu eebweyne idmo daawadaha xiga halo daawadahaas ima maqlo waxaan rajeynayaa inuu ku soo noqon doono qaray barnaamijkana reactionka siyaasadda oo si toos ah aad ugala socon doonto YouTube channelkayga iyo bartayda Facebookga ayaan toos ugu jirnaa waxaan ka hadlaynana waxay ahayd maanta in bal aynu eegno siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo habdhaqankooda iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo siyaasiyiinta qaarkood qaabkay ugu dhagan yihiin iyo Saciid Maxamed Cabdullaahi Xasankii daraawiishta wadankan xoreyntiisa qayb weyn ka soo qaatay bal waxa xiriira ee ka dhaxeeya arrintaas ayaan eegaynay barnaamijka mar kale waxaa ka daawan kartaa YouTube channelka ayaa ka daawan kartaa daawadaha xiga ayaan fursad siinayaa halo assalaamu calaykum soo dhawo walaal magacaaga halka joogto halo assalaamu calaykum soo dhawo walaal ay magacaaga halka joogto halo waa ku maqlaa walaal magacaaga halka joogto magacayga deeqawey walaal Mareykankan jooga haye deeqo Mareykan joogto barnaamijka reactionka siyaasadda waa la socotaa filaya si fiican haye aragtidaada deeqa aragtidaada walaal khadka deeqo dhinaceeda daciifa oo maleynayaa deeqo waa ka go'ay inay kusoo noqotaan rajeyna ama daawadaha ku xiga ayaan fursad siin doonaa haddii kale daawadaha ku xiga ayaan fursad siin doonaa qaray waxaa si toos igala socotaan YouTube channelkayga iyo bartayda Facebookga haddii barnaamijka aad doonaysid inaad ka qayb gashid WhatsApp ayaa uga qayb qaadan kartaa sidoo kalena barnaamijkan oo ku celisa waxaa ka daawan kartaa mar kale YouTube channelka fadlan subscribe like and share mahadsan guulayso gabagabada ayaan maraynaa barnaamijka waxaan jeclahay marka inaan ku soo afmeero barnaamijkeena dalka ma laha qof aan Soomaali ahayn dadka Soomaaliyeed ayaa iska leh laakiin dadka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay iyagoona ka duuleynin aragti qabyaaladaysan iyagoon ka duuleynin nin jeclaysi waayo qabiilka adna wax kuma qabtid anna wax kuma qabo ragga aan ku faano intaasoo xildhibaan baan dawladda ku leeyahay qabiilba qabiilku ka xildhibaano badan yahay dawladda uga xildhibaano badan yahay waa ka macnaha waa ka dulleysan yahay waana ka duruufo badan yahay markaan saa ku leeyahay qabiilba qabiilka Soomaaliyeed oo la yiraahdo waa ka badan yahay dee faqriguna waa ku badan yahay waayo intaasoo xildhibaan ayaa dawladda kugu jirta intaasoo wasiir ayaa ku leedahay haddana dhulkaagii abaarta ahaa hal ceelbiyood laguma qodo dhalinyarada qabiilkaagii waxbarasho looma diro
hooyooyinka qabiilkaaga iyo gabdhihiina quruxda badnaa markay uurka yeeshaan qaarkood baa isku dhinta iyagoo qalliin u baahan ilaa meeshii isbitaalba kuma yaallo ma beenteba ma aha beentee walaal haddaba qabiilku yidhaahdo waa ka xildhibaan badanahay waa isku huuhaa sababtoo ah ama gabar ama nin baa kugu qaata bil walba $4,000 dushaada adiguna waxaa ku faantaa hebel baa kursiga ugu fadhiya ee hadda adu kabalaadahay hadduu hebel kursiga kugu fadhiyo walaalow gacli waxaa haysaa bal maxaad haysaa ya bal maxaad haysaa isweydii waa iska tookhid ereyga tookhid waxaa la dhahaa af soomaaliga intaanan si fiican u aqoonin tookhid waxaa la dhahaa qofka faanka beenta badan macnaha iska faamna anigu waxaan baa haystaa anigu kan baa haystaa anigu kan baa ahaan jira anigu saan baahay anigu kan baahay turfatooraha baa tookhid la yidhaahdaa waa faan beena marka faanka beenta waxaan rajaynayaa inuu soo gabagaboobo idinkiina meel walbaa joogtina khayrta waa mahadsantihiin waa ku mahadsantihiin daawadashada barnaamijkan youtube channelkayga haddaa ku cusubtaan waxaa kaa codsanayaa subscribe-ka inaad dhadhac ku siisid barnaamijka reactionka heesaha reactionka siyaasadda iyo sidoo kale kediska qabyaaladiid iyo bandhiga qabyaaladiid iyo barnaamijkeena maxaan ku idhaahdaa taladoon intaba youtube-ka kala socon doontaa live ayaan xaggu ka noqon doonaa xagga u badan doonaa idilkii waxaan ka codsanayaa subscribe-ka inaad dhegsiisaan page-ka buuqo reactionka ugu dambeeya heestii iyadana xubbigaygii zero asmaloofna page-ku waa ku jirtaa youtube-kuna waa ku jirtaa marka aso soconna meel walbaa joogtaana waa mahadsantiin idilkiin bashbash iyo barwaaqiya baraaraadii ka tegey waxaan idin rajaynayaa kulligan inaan wada guursano waxaan idin leeyahay dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane mahadsanidin fadlan subscribe like and share mahadsanid guulayso